doorashada guddoomiyaha ardayda ee jaamacadda Sitcood waxay dhacaysaa 27 bisha Febraayo oo ku beegan maalinta Khamiista ee soo socota. doorashadu waa xaq asaasi ah oo arday kasta uu ka qayb gelayo si uu soo saaro musharax uu ku qanacsan yahay hogaamintiisa wanaagsan. haddaba maxay tahay habraaca maalinta doorashada looga baahan yahay arday kasta oo ka qayb galaya doorashadani? arday kasta waa inuu wataa kaarka ardinimo ee jaamacadda, haddii kale looma ogolaan doono inuu ka qayb galo doorashada. 2 doorashadu waxay bilaamaysaa 1:00 duhurnimo waxayna dhammaanaysaa 5 galabnimo. 3 arday kasta waxaa looga baahan yahay inuu yimaado maalinta doorashada wakhtiga loo asteeyay. 4 ardaygii la yimaada foodo ama u hoggaansami waaya nidaamka iyo habraaca doorashada waxaa lagu qaadayaa xeerka ciqaabta ee ardayga ee jaamacadda Sitcood. 5 doorashada waxaa ku tartamaya 2 musharax ee kala ah Cabdixakiin Yaasiin Maxamuud Seed iyo Cabdikariin Cabdi Yaasiin. 6 arday kasta waxa uu xaq u leeyahay hal mar oo kaliya inuu codeeyo. 7 doorashadu waxay u dhacaysaa hab qof iyo coda oo qarsoodi ah. 8 warqadda codaynta waxa ku xusan magaca musharaxa iyo magaca xisbiga uu ka sharaxan yahay oo wada socda. 9 arday kasta waa inuu ilaaliyaa habraaca iyo nidaamka safka loo geliyo.